السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan halkan maanta nigu hayaa barnaamij gaaban. barnaamijka gaaban maanta halkan aan nigu hayo waa barnaamij yar oo gaaban oo ina anfacaya waxtarna inoo leh. haddii aan dhinaca iyo aan u kacno haweenka calaamadaha lagu garto gabadha raaliyadii maxay ka kooban yihiin sideystay yihiin maxaase laga shabahaa iyaan oran karnaa. marka la leeyahay gabadhu waa raaliyo markaan leenahay raaliyo micnaheedu waa gabadha intaa oo qodob ee soo sheegi doono laga helo kuna dhaqanto weeyaan. gabadha marka ay ku dhaqanto waa qodobka koowaad. gabadhu markay ku dhaqanto diinta islaamka iyo sharciyada ilaahay noo soo dejiyay waa inay gabadhu ay ku dhaqanto waa ta koowaad. waa calaamadaha lagu garto inay gabadhu raaliyo tahay. waa gabadha markay adeecdo ninkeeda ama soojigeeda. gabadhu waa inay adeecdo ninkeeda iyo soojigeeda. markaan leenahay gabadhu waa inay adeecdo ay ixtiraamto ninkeeda ay qoyska wadayihiin waa inay adeecdo waa inay noqoto tu isku xidha. waa qodobka saddexaad. gabadhu waa inay noqoto tu isku xidha labada qoys ay kasoo kala jeedaan. markaan leenahay waa inay isku xidho ay udub u noqoto labada reerood. isku xidhkaygu waa iyada maadaama ay tahay aasaaskii wax ka dhismayay iyada ay tahay. waa inay noqoto tu la tashata. waa qodobka afraad. waa inay noqoto tu la tashata ninkeega tu aan ka tashan waa inay noqoto tu la tashata. markaan leenahay wax walba oo reerkeyga soo food saara waa inay ninkeeda kala hadasho ay kala tashato. waa qodobka shanaad. waa inay noqoto gabadh xishood badan. waa gabadh xishood badan in ilaahay gabdhaha xishood buu ku manaystay. waa inay noqoto tu xishood badan oo ay noqon tu aan xishoon waa inay noqon. qodobka kale waa inay kalsooni ku qabtaa. waa qodobka lixaad. gabadhu waa inay kalsooni ku qabtaa ninkeeda. kalsooni ku qabtaa markaan leenahay ninkeeda waa haddii uu wax u soo helo iyo haddii uu wax u soo waayo ha noqoto tii ku shukrinaysay. hadday heshana ku shukrida hadday weydana ku shukrida waa inay noqoto kalsooni ay ku qabto ninkeega iyo nafteedaba. waa gabadha waa qodobka toddobaad. gabadha muujisa kala dambeyn iyo ixtiraam. gabadha muujisa kala dambeyn iyo ixtiraam markaan leenahay waa inay gabadhu ninkeeda ay ixtiraamto soojigeeda ay qadariso ay dhowrato ayay ka dhigan tahay oo ay la caytamin aflagaadeyn wixii jirana sideeda uga wada hadlaan waa inay noqoto. marka qodobada aan soo sheegay oo dhan waa gabdhaha raaliyadii. raaliyo gabadha marka la leeyahay waa calaamadaha lagu garto inay tahay gabadh raaliya. marka casharkaas waa cashar muhiima oo ina anfacaya waxna inoo taraya. sidaa darteed waxaan jeclaystay inaan inaga la wadaago. waad mahadsantihiin daawashada daawateen. inta youtube-kayga ku xidhan waad mahadsantihiin horta saad ii daawataan eed ila socotaan barnaamijyada gaagaaban aan idiin soo dhigo. intiina aad garanayna inaad daawataan ayaan nagu macsuumay oo invitation nagu siiyey waana mahadsantihiin. intiina garanayna subscribe saara share-tana igu caawiya. commentiguna dhiirigelin iyo sixitaan bay ii tahay waana mahadsantihiin. asalaamu calaykum waraxmatullahi